kani waa mid ka mid ah ardayda kaalmaha ugu sareeya ka galay imtixaankii ay qaaday dowladda Soomaaliya hase yeeshee duruufyo adag la daalaa dhacay oo ku gadaaman qoyskiisa. magaciisa waxaa lagu magacaabaa Qaasim Salaad Gabood waxa uu ku nool yahay gobolka Gado qaasatan magaalada Garbaharey kaam ku yaala isla magaaladaasi duleedkeeda. waxa warbaahinta ay soo tabiisay qaybo ka mid ah arinta heysata Qaasim Salaad Gabood oo ah xaalad ay la daalaa dhacayaan xaalad mid ku adkeyd oo ah dhanka dhaqaalaha. hase yeeshee waxa uu hormuud u noqday 30,000 oo arday oo laga qaaday exaamkii dawladda ay ka qaaday dugsiyada sare. waxa uu noqday 100 ugu horeysa ee qof ee shakhsi ee guuleystay taa oo dadweynaha aad u soo jiidatay maadaama uu yahay nin duruufyo dhaqaale ku nool oo aan haysan agabka wax lagu barto sida qad telefoon iyo waxyaalo la mid ah iyo nal intaba gurigiisa iyo hoyga uu ku nool yahay waa meel ka fog halka magaalada uu ah ee magaaladaasi Garbaharey waa duleedkeeda meel ah. waxa uu raacaa maalinkii ariga qayb ka mid ah subaxii ayuu iskuulka soo aaday jiray waliba asigoo ka soo tilaabi jiray tag aad u weyn oo halkaasi ku yaala ama waadi ama goob biyaha fariistaan si kasta oo aad u garanayso. hayeeshee asigoo intaasi duruuf ay dusha ka saaran yihiin ayuu haddana noqday shakhsi ka mid ah shakhsiyaalka guuleystay ee ardayda da'da yar ah. waxaana dowladda Soomaaliya shacabka ugu baaqeen inay u qabato wax badan oo ah in daryeel dhan walba ah ay u fidiso maadaama duruufta ay heshay isla markaasna uu ku nool yahay nolol midda zero ah sida la dhihi karo. waxa ay kale dowladda qayb ka mid ah ay sheegeen inay damaanad qaadi doonaan jaamacadiisa iyo noloshiisa qayb ka mid ah ilaa qoyskiisa qaar ka midna ay wax u qaban doonaan taa oo shacabka ka wada farxisay. aaraahda iyo shacabka kommentiyadooda markaad eegtana ay noqonayaan kuwa ammaan ay kala dulaceen Qaasim oo ay ku sheegeen inuu yahay nin geesi ah maadaama intaasi asigoo duruuf ah ee wax ku baranaya halka dadka qaarkood ay iska joojiyeen dhammaan waxbarashadii ayagoo haysta awood isla markaasna qaarkoodna ay sheegeen in noloshan ay ku nool yihiin isla Qaasim oo kale aysan ku dhiiran inay wax bartaan oo ay ka niyad jabeen. marnaba ka quusan noloshaada si aad wax u barato oo aad asagaaga ula mid noqoto taa ayaa ah oraha wanaagsan oo dadka wax bartay ee dadka kala ku dhahan inta wanaagsan. ardaydaasi ayaa aad u soo dhaweeyay iyo magaalada uu ku noolaa waa sheegeen in uu yahay nin aad u wanaagsan Qaasim maadaama uu arintaasi sabab u noqday in ama loo soo jeediyo magaalada Garbaharey iyo dhammaan dadka ku nool iyo duleedkeeda. waxay kala dhaheen duruuf walba oo aad ku jirto ama ragga kaamamka ku jiro inay ilmahooda waxbarashada geeyaan kuna dhiiradaan sidii ubadkooda ay u noqon lahaayeen qaar guuleysta. waxaa laga yaabaa ayagoo duruuftaasi adag ku nool inay noqdaan dad guuleystay magacii maamuus intaba sameeyay. dunida qayb ka mid ah taariikhda ayaan ku haynaa madaxweynayaal badan oo soo maray duruufyo kana imaaday magaalooyin waaweyn meel ka baxsan oo ah miyiga ee magaalooyinkaasi ayaa tusaale cad kugu filan ee qaar badan oo duruufyo kan ka sii adag soo maray sida caseeynimo iyo waxyaalo la mid ah hayeeshee guuleystay oo noqday qaar noloshooda wax badan ka bedela. haddaba noloshaada wax badan waad ka bedeli kartaa oo go'aanka waa dhankaaga adiga ayay kugu xiran tahay in wax badan aad samayso fagaarooyinkan aad ka soo muuqato. hayeeshee niyadda ayaa ah mid adag oo ah inaad adkaysato isla markaasna u sameeyto duruufyada kugu gaadaaman iyo xaaladda Soomaaliya oo iska ah mid cakiran dhanka dhaqaalaha dhanka horumarka iyo wax walba maadaama wadanka uu burbursanaa ku dhawaad 30 sanadood ee dawlad la'aan tahay oo ayada ay ismaamulayso. arrimahaas oo idil anagoo og isla markaasna la socono ayaa haddana dad badan waxa ay ku dhiirigeliyaan dadiyooga inay wax bartaan wax soo saar sameystaan dhan walba aad tahay iyo nolol kasta aad ku nooshahay. caruurtaada waa inaad geysaa waxbarashada iyo goobaha wax lagu barto maadi diini intaba si ay u noqdaan dad wax soo saar leh fikrado cusubna ku soo kordhiya ummadda Soomaaliyeed. dadka waxa ugu wanaagsan ayay dhahan marka dhanka waxbarashada loo eego dadka miyiga ku soo koray ama se noqday qaar soo arkay nolol kadeed iyo dhib badan oo ay ku jirto
tan maanta Qaasim oo kaleeto. Warbixinteeni intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa channelkeena wuxuu ahaa Dooxa Media ayaa barnaamijkaasi idin la socodsiinay intaan ku kulmi doono warbixinayinkan oo kaleeto waxaan idin leeyahay intaas iyo nabadgelyo barnaamijkeeni ayaan inta ku soo afmeeri doonaa barnaamijka channelkan ayaan intaas ku soo